Bismillah, culimo ku soo dhawaada cutubkan oo aynu kaga hadlayno sharafta uu leeyahay cilmiga. Muuqaalkan waxaan duubayaa 6 saaxiibinimo. Halka arkaysaa geeda iga dambeeya, bannaankaas ka fadhiya, jawi qabow, dabeel macaana socota. Maasha Allah. Dadkoo dhan way hurdeen, wax buuqayo, jawi degan wey. Wuxuu yidhi qaala Abi Ciise. Marka insha Allahu tacaala cutubkan waxaan kaga hadli doonaa cilmiga uu leeyahay, sharafta cilmiga uu leeyahay. Gabayo badan oo kugu dhiirigelinaya cilmiga inaad barato. Hadda gabaygana maanta soo qaadanay gabay aad u dheer weeye, aad u dheer. Manduumada aad garanaysaan, manduumata Isxaaq Albeeri, intuu cilmiga ka hadlayo dhan waan soo xaafsanay. Gabayo kaloo badan 20 ku dhowna waa haynayaa, mar dhow arkaysaan insha Allahu tacaala oo ka hadlaya cilmiga. Wuxuu yidhi Abi Isxaaq, marka insha Allahu tacaala sharaxa kuma dheeraan doono. Meelaha aan leeyahay niyofaan ay u baahan tahay, meelaha waan dul istaagayna. Codkana waa i xabiibsan yahay, hase yeeshee codkayga in la fahmayaan filaya insha Allah. Wuxuu yidhi abaabakrin abaabakarow dacawtuka waan kuu yeeray low ajabtaa haddaad i ajiibto ilaa maa fiihi xaduka waxaan kuugu yeerayaa wax nasiibkaagu dhex ahaaday low caqalta haddii aadba caqli leedahay. talow waxaasi maxaa weeye ilaa cilmin cilmiga xaggiisa ayaan kugu yeerayaa takuunu aad ahaanayso bihi cilmiga sababtii imaaman imaam mid imaam af soomaaliya waxay noqonaysaa mid dadku ay dabafeelaan qudwa imaam ayaad noqon haddaad cilmiga barato mutaacan la adeecayo in nahayta haddii aad diiddo wain amarta yaa dad wax amartaba qaala allah aa dhihi wa qaala rasuulullah yaa diidi kar marka yaa wayajlu wuu ifinayaa maa bicaynika wax ishaada ku sugan min qishaha oo daboola. Cilmiga wax ishaada ku sugan wayajlu wuu ifinayaa maa bicaynika wax ishaada ku sugan min qishaha oo daboola. Yacni markaa cilmiga barto wax aadan arkayna arkay marka dambe. Culamada markii su-aal la weydiiyo sooma arkin qaabkay u jawaabayaan. Mararka qaarkood su-aasha iska cad oo leedahay su-aasha ma fududahay ay leeyihiin kama jawaabi karno ilaa qofkii su-aashan keenay aan aragna sababtu u yihin maxaa waaye waxbay u jeedaan wax aadan arkaynin ay u jeedaan. wayajlu wuu ifinayaa maa bicaynika waxa ishaada ku sugan min qishaha oo daboola wayahdiika wuu kugu hanuunin asabiila waddada saxda ah idaa dalalta markaad baadiyowdo wataxmilu wada xambaari minhu cilmiga xaggiisa fii naadiika fagaarahaaga dhexdii taajan taaj wayagsuuka wuu ku huwin aljamaala qurx idaa carayta markaad idaa qaribta markaad qariib noqoto mise idaa carayta waad dhihi kartaa nusqo kale markaad qaawanaato. Cilmiga wuu ku qurxinaa inaad labisato qurux weyn mase aha laakiin markaa cilmi leedahay waxaad ku hadlayso waa cilmi soo moogid hadalkaaga markuu quruxsanaana wuu quruxsanaana. yanaaluka wuu ku soo gaari nafcuhu nafcigiisa maa dumta xayan inta aad nooshahay wayabqaa baaqi ayuu ahaan dikruhu sheegsheegiisa laka adiga in dahabta haddii aad geeriyoto. hadda sheeqan uu dhintay waan sheegsheegaynaa ajirkana wuu helayaa soo ma arkiisid. yanaaluka wuu gaarayaaba sheeqa soo qabrigiisa ku jira. ilaahu Abi Isxaaq ilaahu u naxariiso sama gaarin cajiib ilaahu Abi u naxariiso ilaahu inta muslimiin dhibato ilaahu u naxariiso. yanaaluka wuu ku gaari yanaaluka wuu ku soo gaari nafcuhu nafcigiisa maa dumta xayan inta aad nooshahay wayabqaa baaqi ayuu ahaan dikruhu sheegsheegiisa laka adiga in dahabta haddii aad geeriyoto haddii aad tagto yani haddaad geeriyoto. cajiib huwa alcadbu cilmigu waa seef yaa war cilmigu waa seef talow sheekh muxuu soo wada il dhegeyso huwa alcadbu cilmigu waa seef almuhanadu hindiyana lagu sameeyey laysa yanbu aan afbeelaynin tusiibu bihi waxaad kaga dhufan maqaatila halka uu kaga dhimanayo man aradta kii aad doonto. cilmigu waa seef hindiya lagu sameeyey haye aan afbeelayninba waxaana kaga dhufan maqaatil waxaa la dhahaa qofka meeshuu ka dhimanayo tusaalahaan oo kale halkaa maqaatil marka qof hadduu cilmi leeyahay waxaa qof seef afeysan wato waay meeshuu rabana kaga dhufanay kaad marka wuxuu yidhi
huwa alcadbu almuhanadu laysa yanbuu tusiibu bihi maqaatila man aradta kaad sharaxad hoosada aqriyo kaad doonto barta uu ka dhimanayo ayaad kaga dhufan maadaama aad haysato seef aan afbeelaynin waa cilmige wa kanzun cilmigu waa kanzi laa takhaafu calayhi lisan tuugna aadan ooga baqaynin yaa haddaad maanta caawo derbigaas uu tuug ka soo boodo yaa u dhaho waxbaan ka xaday ninka maskaxdiisa wax ku jirta waxaan yaray maskaxdeeda iigu jira bas waxaan yar had idin akrinay hadduu dhawaan ka xaday ma dhici karto qaaraa hore u tijaabiyeen nin caqli badnaa magaciis garan maayo hadde ay dhaheen ninka caqli badnaa maskaxdiisay baareen marka ma dhici karto cilmiga in la iska xado qof hadduu dhinta xitaa lo maskaxdiisa aan fiirino aan ka xadno qof kale aan gelino wax dhici karta maaha cilmiga la iskama xadi karo sheekh lacagtaa la iska xada lacagta dadka way ilaalisaa laakiin cilmiga adoo ku ilaalina wa kanzun cilmigu waa kanzi laa takhaafu calayhi lisan tuugna aadan ooga baqaynin khafiifu lxamli qaadidiisuna way fududahay yuujadu waad ka heli xaysu kuntaa meeshaad joogtaba yaziidu wuu ku ziyaadaa bikahrati alinfaaqi minhu bixinta in badan aad bixiso cilmiga haddaad in badan bixiso wuu ziyaadaa zakada cilmiga laga bixiyo inaad bixiso wey haddaad bixi weyso faafin weyso sheegsheegi weyso yaa adaa iloowiba adiga laftirka ayaa ilooweysa wayanqus wuu ku nusqaamaa in bihi ka fanshadadta haddii aad gacanta yaa haddii aad cilmigaaga gacanta ku adkayso oo nuqsaamaa marka falow qad duqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa dacman dhadhamin un la aatharta waxaad dooran lahayd attacalluma inaad wax barato wajtahadda waana ku dadaali lahayd cilmiga macaanuu leeyahay haddaa dhadhamisa mar bisway qabowga waxba kaama taray kuleelka waxba kaama taray wax kaa taray male cilmiga unbaa ku cad waa kuu dhadhamay moogtahay mar walba wax aadan ogeynaa sii baranay gaajo iyo kuleel iyo dhib iyo rafaad iyo waxaas waxa eegi maysid ilaahay subxana wataala hana dhansiiya cilmi qaaraa waxaa la sheegaa culamada qaarkood waa dhab cisho markay tukadeen kadib casho loo keenay cashada mau cunin isagoo kitaab u dul fadhiyey salaada subaxaa la gaari ma tukanin qoraxdaa soo dilacday oraxaa la sala sox ma tukanin ayana casho maa cunin maxaa hadda ogow maaha inuu salaad ka tegey maaha cilmigaa u dhadhamay si kitaab uu dul fadhiy uu islaaway marka waa cilmiga waa lagu jibo waa loo jiboodaa waay falow qad duqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa dacman dhadhamin la aatharta waxaad dooran lahayd atacalluma inaad barato wajtaadta waana ku dadaali lahayd raggan siyaasiyiinta ah hadduu cilmigu dhadhami lahaa siyaasad bay iska dhaafi lahayn walam yashqalka canhu cilmiga kaama mashquuliyeen hawan mutaacun hawa la adeecayo walaa dunyaa iyo adduunyadana bisukhrufihaa dhaldhalaalkeeda futintaa laguma fitneeyeen hadduu cilmiga kuu dhadhamay wey walaa alhaaka canhu cilmiga kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beerku yaabgelisa walaa khidrun iyo khidrigii bisiinatiha quruxdiisana kaliftaa maadan kuma maraateen marka khidri iyo khidrigii yaan dhahne meesha af soomaali maan fasirin marka insha allah culama u geynaynaa halkaas af soomaali saxa kusoo raadis ereyga maadaama aan hadda aanan garanaynin walaa khidrun af soomaali saxa baad leedahay khidriga waa meeshii gabadha gasho iyo meesha ku gabato iyo af soomaali saxana la raba oo khidri loo heli karo waan soo raadinaynaa insha allah walaa khidrun iyo khidrigii bisiinatiha quruxdiisana kaliftaa maadan kuma maraateen cilmiga macaankiisa hadduu kuu dhadhamo xagga dumarka maadan aadeen qof waliida u orday qofaa cilmiga u dhadhamin weeye iyo gabar ragga daba urdada aragto cilmiga uma dhamin hadduu kuu dhadhamo waxaas o dhan waa ibnu taymiya feri ibnu taymiya weligiis ma guursan limaada sheekhan la yirahdo asagana arbiciinka qore nabowi ma guursanin orniya maxaa u guursan wasalle war waa ilaa wuu yiri guur oo dhan waa ilaaway raggaa waxay ahayn yani billahi caleyk rag shaqa dheer u taallay ahayn kan qor kan baar kan fiiri
ciyaal wax ka wanaagsan ay ka tegeen laakiin oo dhaxal ah. Leanna markaa dhimato waxaa jira ka haray moogtahay. Cunug wanaagsan cunug wanaagsan hadaad dhasho oo ka dhimatay wuu kusoo duceynaa. Ilaah aabbahay u naxariiso, ilaah aabbahay u naxariiso. Cilmiga haddaama aad ka tagtayna hadda sidoo kale waay. Cilmiga naafica haddaa ka tagto wuu kusoo gaaraa. faquutu ruuxi quudka ruuxda arwaaxul macaani waa macaanida arwaaxdeeda. walaysa bian طacimta ma aha inaad wax cunto walaa sharibta iyo inaad wax cabto. waxaynu ka koobannahay jismiga iyo ruuxda. jismiga waxaa laga abuuray ciidda wuxuuna u baahan yahay wixii ciidda ka soo baxa. hase yeeshee ruuxda waa samaawi waxayna u baahan tahay waxyiga samaawiga ah sida cilmiga, cibaadada, salaada. waxayna qudataa oo horumar ku samaysaa waxyiga samaawiga ah. ya jirkan wuxuu horumar ku gaarayaa wixii dhulka ka soo baxay. wuu ku buuranaa, wuu ku ciilaa, wuu ku adkaanaa wixii dhulka ku soo baxay. laakiin naftan waxay horumar ku gaaraysa waxaa weeye waxyiga samaawiga weeye. qad aflaxa man zakaaha ayaa kugu filanba. soo arkiis haddaa rabto inaad guul gaarto qad aflaxa man zakaaha qad aflaxa almuuminuun aladiina hum. soo arkiis fawaadibhu cilmiga ka caada dhigo wakhud biljiddi fiihi u qaado si uu dadaal ku jiro. fain acطaakahu allaahu hadduu ilaahay ku siiyo intafacta waad intifaacsan. wain ucطita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa dawiila baacin baac dheer haddaad caalim noqoto wa qaala annaasu dadkana ay ku yidhaahdaan innaka qad calimta adigu waad baratay hooy falaa ta'man aamin ha ka noqon su'aala allaahi canhu su-aasha alle cilmiga uu kaa weydiin doono bitawbiiqin si canaana. calimta waad barataye fahal camilta muku camal fashay. waryaa su-aashaa waa inoo taalla agow wallahi su-aashaa waa cajiib. fara'su lcilmi cilmiga meesha ugu sarraysa taqwallahi waa alla ka cabsiga xaqan si dhaba. walaysa ma aha bian yuqaala in la yidhaahdo laqad ra'usta madax baa noqotay. cilmiga meesha ugu sarraysa haddaad ka gaarto allana aadan ka baqaynin waxba kuu tari mayso mirana ku yeelan maayo. wa afdalu thawbika maradaada mideeda ugu qiimo badan alixsaanu waa samafalka waa alloo ka boqdo si alloo ku arkayo kale waa dadka ood wanaajiso. wa afdalu thawbika maradaada mideeda ugu qiimo badan oo ugu wanaagsan alixsaanu waa samafalka. laakiin hase yeeshee araa waxaan arkaa thawbal isaa'ati xumaha maradiisii qad labistaa inaad xeratay idaa lam yufidka alcilmu markuu kuu faa'iideyn waayo cilmiga khayran khayr fa khayru minhu waxaa ka khayr badan cilmiga allow qad jahilta inaad jaahil ka noqoto. cilmiga hadduusan khayr kuu faa'iideynin inaad jaahil ahaato ayaa kuu khayroon. wain alqaaka hadduu kaa tuuro fahankaaga fii mahaawin meelo laga hoobto oo lagu baaba'o falaytaka hoogaagee uma laytaka haddana hoogaagee maa fahimtaa waxba maadan fahmin. sujinta satajni waad goosan doontaa min thimaari alcajzi caajiska mirihiisa jahlan jaahilnimo. wataskuru waad ku yaraan fil cuyuuni indhaha dadka idaa kabirtaa adigoo weyn. yani meeshan sharxa baanta xogaa sug wuxuu dhahay waxaad goosan doontaa cajiska mirihiisa jaahilnimo darteed waadna ku yaraan indhaha dadka. yani haddii aadan wax baranin indhaha dadka waa ku yaraane adigoo weyn. hadaad wax baratana indhaha dadka waad ku weynaani bal adigoo dhintaa lagu sheegsheegaa oo aad tahay qof nool. wa tufqadu waa lagu waayi in jahilta haddii aad jaahil tahay wa anta baaqin adigoo nool. markiis wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddaad caalim noqoto walow fiqita haba lagu waaye aadba dhimatide waa lagu hayaa sheeqan adugu dhinte
laakiin waan haynaa caawa. watadkuru waad xasuusan qowlatii hadalkayga laka adiga aan kugu leeyahay bacda xiinin waqti kadib idaa xaqan dhab ahaan bihaa naseexadayda yowman camilta maalin un haddaad ku camal fasho hadalka aan ku leeyahay hadaad ku dhaqanto maalin un yaa waad xasuusan doontaa. wuxuu ku leeyahay sheekh wax barou ku leeyahy wax baro. adigana haddaad leedahay wax baran maayo, cilmiga waan ku daalay, waan ku cajisay, magaalkan galaa, waan shaqaysanaa, iska dhaaf waxaas. wax barou ku leeyahy, taasaa iga talow ku leeyahy. wa in ahmaltaha haddaad dayacdo wanabadta aad tuurto nusxan naseexadayda wamilta aad u leexato ilaa xudaamin baaba qad jamacta aad ururisay fasawfa tacaddu dib ayaad ka qaliini doontaa min nadamin qoomamo calayhaa naseexadaydii aad qaadan weysay awgeed. wamaa tughni waxba kuu qaban mayso annadaamatu qoomamo in nadimta haddaad qoomamato. waxaad qoomamoon doontaa marka oo aad shallaayi doontaa idaa absarta markaad aragto suxbaka asxaabtaadii fii samaa'in iyagoo cirka ku sugan qad irtafacuu oy ka sara mareen waqad safulta adna aada hoosayso. asxaabtaadii oo cirkaa sara maraya adigana aa hoosayso markaasaa farta qaniine. lan waxaa laisku dhaafay wax kalmaa sheekh adduunyadan waxba layskuma dhaafin. lagaama caqli badiyo, wax lagugu dhaafi male. keliya waxaa lagugu dhaafay dadaal bis, dadaala lagugu dhaafay, wax kale laguma dhaafin. marka midkaa ku dadaala marka inaad dadaasho, intaad dadaali karto dadaal, hana isdhibin, waxaad qaban karto qabo. faraajicaha dib oogu noqo naseexadaydii wadac canka alhuweyna ka tag waxyaabaha liita. famaa bilbuطi gaabinta tudriku ku gaari maysid maa dalabta waxaad doonaysid. maqlaysaa? walaa takhlal ha isku kibrinin, walaa takhtal ha isku kibrinin bimaalika xoolahaaga. walha canhu iskaga mashquul oo maxaa falaysa almaalu maalku ma aha ilaa maa xalimta kaad garanaysay mooye. war xooluhu soo la garan maayo. xoolahan calooshaa la geliya, marka caloosha la geliyana maxay noqdaan? xaaray noqdaan. arkaysaa? marka xaarkaasi ha isku kibrinin. hadduu weligaa qof adduunye uu kugula tartamo waa qof xaar kugula tartamaya oo kale oo niga waan kuu daayee iska qaadaa dhaha. walaysa lijaahilin jaahilka uma aha fi nnaasi dadka dhexdooda macnan wax macno ah walow mulku lciraaqi ciraaq oo dhan mulkigeeda lahu isaga ta'ataa hadday u suurtoodo yaa haddii ciraaq oo dhan madaxa looga dhigo laakiin uu jaahil yahay. haddii ciraaq oo dhan mase soomaali oo dhan madax looga dhigo laakiin uu jaahil yahay yaa wax fiican uu qabanay wax uu yahay malahan. asaaba eber muxuu soo kordhiya. sayandiqu canka wuu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaaga fii mala-in makhluuqa oo dhan dhexdooda. wayugtabu waa lagaa qori yowman maalin in katamta hadaad qariso cilmigaaga. mise wuu kuu doodi ya mise wuu kaa doodi, mise aduu ku dacweyn, mise asaa kuu dacwoon. waa lagaa qori maalin un haddaad qarisa cilmiga. marka cilmiga ha qarin weliga, xaqa sheeg. cilmigu ma aha wax dadka lagu raaligeliyo. haddii ninka waa nin wasiir haddaan u sheega muxanaaqa ma jirto waxaas weligii. waryahow ilaahay saasuu yiri, rasuulka saan yiri, rasuulka saanuu yiri, ma garanaysaa? hadaad marka cilmigu waxba la qaran maayo, bal qofkii cilmiga qariya goodinaa kusoo aroortay in halkaa bir looga xiro doono iyo cadaab iyo maalinta qiyaame. xadiisaa kusoo arooray. wamaa yugniika muxuu kuu qaban tashdiidulmabaanii dabaqyada aad adkaynayso idaa biljahli nafsaka haddii aad jaahilnimo naftaada qad hadamta
aad ku dumisay ordaba qaadista muxuu ku tari naftadaad jaahilnimo ku dishay jacalta almaala maalka ayaad muxuu dheh jacalta almaala maalka ayaad waxaad ka yeeshay fowqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeya jahlan jahli dartii lacamruka waan dhaartaye fi lqadiyati maa cadalta qadiyadan cadaalad maadan ka yeelin wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya cilmiga iyo adduunyada binasi alwaxyi siduu waxyi u caddeeyey bownun faqri sataclamuhu waad garan doontaa idaa daahaa qara'taha markaad daahaa akhrido lain rafaca hadduu kor u qaado alghaniyu maalqabeenka liwaa'a maalin calanka maalka uu samaystay hadduu kor u qaado la'anta adiguna liwaa'a cilmika calanka cilmigaaga uu kuu sameeyey qad rafacta ayaa taagani yaa oranayahu ninkan hadduu calankiisa taagtay adina calankaagaa taaganiye hasyasin uu ku leeyahy hasyasin lain jalasa alghaniyu hadduu maalqabeenka lain jalasa alghaniyu hadduu maalqabeenka ku fadhiisto calal xashaayaa firaasho dushooda oo aad u qiimo badan la'anta calal kawaakibi adiguna xidigaha dushooda ayaad qad jalastaa ku fadhiisatay ya ulaa'ika calaa hudan ya kuwaasi hanuunay ku dul sugan yihin oo ku dul fadhiyaanba calaa hudan adduunka waya adduunkii wayba hanuunsan yihiinba aakharana ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasaa guulaystay ulaa'ika hadda guushaan maxaa waaye faman zuxzixa can innaari wa udkhil aljanna faqad faaz arkaysaa adduunka inaanu aakhirna janno cilmigaa lagu gaaraa marka wa in rakiba hadduu fuulo aljiyaada fardo musawamaatin la calaamadeeyey la'anta adiguna manaahija taqwaa waddooyinka alla ka cabsiga rakibtaa ayaad fuushan tahay ya arkaysaa wamahma iftada wax kasta uu jebiyo abkaara alkhawaani hablaha quruxsan bikaarooyinkooda fakan bikrin bikaaro badan min alxikami oo xikmada iftadadta ayaad soo bikra jebisay yacni ninka maalqabeenka ah bikaarooyin gabdho badan oo hadduu bikra jebiyo midba habeenuu la seexanaa wuu bikra jebinaa war adigana meeqaad xikmo ah ood bikra jebisay uu ku leeyahay maalin walba wax cusub ayaad sheegaysaa cilmi cusub yani cilmiga marba wax cusub aad sheegaysaa marba wax cusub ayaad bikra jebinaysaa uu ku leeyahay wuu ku dhiirigelinaya mogtahay walaysa yaduruka kaama dhibayo aliqtaaru faqriga shay-an waxba idaa maa anta rabbaka qad caraftaa markaad rabbigaaga garato faqriga hee waxba kaama dhibayo qof waxaa tahay degan xasiloon qanacsan maasha allah famaadaa cindahu laka min jamiilin muxuu alle agtiisa wanaag ku ahaaday idaa bifinaa'i daacatihi anakta markaad gaadiidkaaga fadhiisiiso daacadiisa daarteeda haddii ay cibaadadaad u badato alla badanaa waxa aad alle agtiisa ku leedahay faqaabil bilqabuuli linusxi qowlii aqbal naseexadayda teeda wanaagsan fa in acradta canhu haddaad ka jeesato faqad khasirta waad khasaartay wa in raacaytahu haddaad ilaaliso qowlan wa ficlan qowl iyo ficil ahaan wataajarta alilaaha bihi allana aada la ganacsato rabixtaa waad faa'idi ilaahay ganacsi waa lala galaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin ma idiin tusaa ganacsi tunjiikum min cadaabin aliim cadaabka iscunaya idinka badbaadinaysa tu'minuuna billah ilaahay yaa rumaynaysaan warasuulihi rasuulkiisa watujaahiduuna waxaa u jihaadaysaan fii sabiili illaahi dar ilaahay ayaad ku jihaadaysaan biamwaalikum xooliin ay ku jihaadaysaan wa anfusikum nafiihina dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun saasaa idiin khayron haddaad garanaysaan
yakfir lakum dunuubtiina la dhaafaaba wayakirkum markaysa aayadda kale maxay ahayd ina aladiina yatluuna kitaab allah kuwa akhrinaya kitaabka ilaahay qur-aanka waay xadiidka maaha ina aladiina yatluuna kitaab allah kuwa akhrinaya kitaabka ilaahay wa aqaamu salaa salaada oogaya wa anfaquu mima rasaqnaahum wax aan siinayna wax ka bixinaya siran wacalaaniya si muuqatay si hooseba yarjuuna tijaaratan lan tubur waxayba ku jiraanba ganacsi aan lagu khasaarin ma arkaysaa liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadli inahu gafuurun shakuur marka ganacsigaasi haddaad doonaysa inaa ilaahay la gasho arrimahaasuu ilaahay aayaddii haddaan kuu sheegayay samee ilaahay ad ganacsi la gasha marka cajiib kan marka waa gabaygeeni koobaad oo ka hadlaya cilmiga gabayo badan ayaan isla arki doonaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu